halkan aan fariin ugu diro Israa'iil iyo dunida kale waa reer galbeedka shirarkiina iska wata oo kulankoodii ugu dambeeyay hadda sii wataan dhammaan wadamada reer galbeedka Hamas waxay u arkaan inay tahay urur argagixisa Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail. haddaba waxaan doonayaa inaan halkan ugu cadeeyo Israa'iil waad noqon kartaan idinka Israa'iil ah urur ay leeyihiin reer galbeedka laakiin Turkiga waxba idinkuma lahan السلام عليكم سيدا la socono maalintii shalay ahayd madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha wadankaasi Turkiga ayaa khudbad wuxuu ka jeediyay kulan ay lahaayeen xisbigiisa khudbadaasi oo aad u dheereed ayuu madaxweyne Erdogan qayb kamid ah wuxuu kaga hadlay arinta Gaza iyo xasuuqa lagu hayo dadka Falastiiniyiinta madaxweyne Erdogan ayaa sidaas oo kale wuxuu aad u cambaarayay wadamada reer galbeedka ee ku taageeraya Israa'iil inay xasuuqaan dadka degan magaalada Gaza iyo daanta galbeedba si walba haatee khudbadaasi waxay ahayd mid aad u dheer waxaan isku dayay in qayb yar oo kooban inaan markaan halkan idinkula wadaago oo kaga hadlayay arinta Hamas iyo xasuuqa dadka reer Falastiin lagu hayo khudbada madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa aad ugu carooday wadamada reer galbeedka iyo Israa'iil oo iyada si toos ah ugu hortimid intaan taas ka hadlin waxaan marka koowaad idin fasaxi doonaa khudbadaas oo aan afka Soomaaliga ka dhigay oo aan idin turjumay inaan halkan ku wada daawano adduunka kama helaysid maamul ciidankiisa habeen iyo maalin duqeyn hawada sare ah ka wada aan Israa'iil ka ahayn midaasi oo duqeyn ku haysa dawlado kale oo caruur ku leynaysa isbitaalada dhexdooda goobaha cibaadada iskuulada guryaha la degan yahay suuqyada wadooyinka dhammaan madafiic ayaa ku socda nidaamkaasi oo aan bini'aadanimada ku dhisnayn taangiyada iyo hubkiisa kala duwan ee kuwa artilleriga ku garaacaya ummadan madaxweyne Erdogan wuxuu yiri ma jiro nidaam adduunka ka jira oo har iyo habeenba isbitaalada garaacaya wadooyinka garaacaya dadka masaakiinta xasuuqaya oo artilleriga madafiicda culculus markaasi ku gamaya dadka masaakiinta si ay u xasuuqaan Şimdi buradan halkan aan fariin ugu diro Israa'iil iyo dunida kale waa reer galbeedka shirarkiina iska wata oo kulankoodii ugu dambeeyay hadda sii wataan dhammaan wadamada reer galbeedka Hamas waxay u arkaan inay tahay urur argagixisa Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail. haddaba waxaan doonayaa inaan halkan ugu cadeeyo Israa'iil waad noqon kartaan idinka Israa'iil ah urur ay leeyihiin reer galbeedka laakiin Turkiga waxba idinkuma lahan madaxweyne Rajab Erdogan khudbadiisa aad ay u dheereed wuxuu yiri wadamada reer galbeedka iyo Israa'iil waxay ku heshiyeen in ururka Hamas ay ku shaabadayaan inay yihiin argagixiso markaas xiriir la leh ISIS iyo Al-Qaacida sidaas oo kale waxa uu sheegay inay hadda ay shirayaan wadamada reer galbeedka ayna ka shirayaan arinta magaalada Gaza sidaas oo kale wuxuu aad u duqeeyay Israa'iil oo wuxuu ku yiri Israa'iil ogaada dadka wadamada reer galbeedka waxaad u tihiin urur oo markaas iyaga ay idin taageeraan laakiin inaga ka Turki ahaan ma nihiin dad idin taageeraya xasuuqa aad ku haysaan dadka masaakiinta ah ee reer Falastiin Hamas ma ahan urur argagixiso laakiin waa urur iska xoreyn iyo mujaahidiin kuwaas oo u dagaalamaya dhulkooda iyo dadkooda evet bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu son yaptıkları kulankoodii ugu dambeeyay Hamas ay kaga arinsanayeen dhammaan wadamada reer galbeedka waxay u ololeynayaan in Hamas argagixiso lagu tilmaamo terör örgütü olarak görüyor bizim de doğru bulmadığımız waa xilligii aan si furan hawada ugu marsiin lahaa wadamada ku taageeraya Israa'iil xaaladan caruurta iyo haweenka iyo kuwan waxba galabsan ee sida baan loo laynayo maalin walba iyadoo lagu gambanayo Hamas ayaan la dagaalamaynaa in xuquuq ay marmarsiyo aysan u heleen midaas oo la barbar dhigi karin xasuuqa baan ay geysanayaan madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan hadalkiisa waxa kamid ah wuxuu yiri
wadamada reer galbeedka shirarka hadda u socda iyo nuxurkooda wuxuu yahay inay markaasi xamaas ay ku shaabadeeyaan inay yihiin argagixiso. wuxuu leeyahay xamaas ma ahan argagixiso, waa urur markaasi u taagan inay difaacdaan dhulkooda iyo dadkooda, waa dad mujaahidiin ayuu yiri. sidaasi oo kalena wuxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey in yacni ay wadamadan reer galbeedka ay markaasi Israa'iil ay ku taageerayaan inay xasuuqaan dadka shacabka ah. sidaasi oo kale madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan hadalkiisa waxaa khudbadiisa ka mid ahayd in dhawaan uu markaasi booqasho uu ku tagi lahaa Israa'iil oo kol hore isaga iyo Netanyahu ay ku kulmeen xarunta qaramada midoobeed, laakiin labada dhinacba ay markaasi ku balameen in labada dal ay soo kala booqdaan oo ay isdhaafsadaan wafdi. wuxuu yiri Erdogan hadiiba hadda xasuuqa sidaan u sii socdo oo axmaqnimada ay sameynayaan Yuhuudda ay sidaan u sii wadaan, waxaan baajiyo ayuu leeyahay, waxaan kansalay kulankii aan markaasi ama safarkii aan ku tagi lahaa Israa'iil. hadalkan waxaa aad ugu carooday madaxda sarsare Israa'iil, halka wadamada reer galbeedka badankooda ay weli aamusan yihiin, caradooda ay qarsanayaan maadaama waxyaabihii ay u ololeynayeen ay ahayd in xamaas lagula shaabadeeyo inay yihiin argagixiso oo markaasi lagu xalaashado dhiigga dadka reer Falastiin. khudbadii madaxweyne Erdogan sidaasi oo kale waxaa ka mid ahayd oo ka codsaday wadamada reer galbeedka ee aadka u taageeraya Israa'iil in Netanyahu ay ku cadaadiyaan inuu u fasaxo shidaalka u socda dhanka magaalada Gaza. sidaasi oo kalena Netanyahu isla shalay ayuu isagana hadlay, wuxuu sheegay inaysan suurtagal ahayn in shidaal ay u fasaxaan magaalada Gaza, isagoo taas yacni ku sheegay in xamaas ay shidaal ay keedsanayso oo markaas ay u suurtagelinayso inay dagaal ay ku sii qaadaan Israa'iil. khudbadii sidaasi oo kale waxaa ku jirtay in Mareykanka iyo Yurub ay horey ay u qorsheynayeen in xamaas ay markaasi ku shaabadeeyaan inay yihiin urur argagixiso, waa intii aanan 7 Oktoobar weerarka aan lagu qaadin. sanadkiina soo dhaafay Turkiga waxay soo dhaweeyeen madaxweynaha Israa'iil lagu magacaabo Isaac Herzog, laguna soo dhaweeyay Ankara. waana markii koowaad 2000 ilaa 2008 qof ka socda Israa'iil oo markaasi uu booqday Turkiga. sidaasi oo kale bishiina soo dhaaftay sidaan la socono Netanyahu iyo Erdogan ayaa waxay ku kulmeen xarunta UN-ka. labada dal waxay ku ballameen in markaasi wufuud kala duwan ay labada dhinac ay isdhaafsadaan, laakiin khudbadii shalay madaxweyne Erdogan waxa uu ku sheegay inuu kansalay balantii ay lahaayeen Netanyahu oo ahaa in laba wafdi ay markaasi isdhaafsadaan oo soo kala booqda Tel Aviv iyo Ankara. Netanyahu wuxuu yiri waan baajiyay kulankaasi maxaa yeelay Israa'iil waxay caadaysatay xasuuqa dadka reer Falastiin, waxaana aad u taageerayay ayuu yiri wadamada reer galbeedka.